بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستا لا فيتوريا سيمبري قاقاياشا. waxaan la hadlayaa jiilka saddexaad ee qaqaanyaasha barbaarta, waxaan la hadlayaa dhalinyarada, waxaan la hadlayaa qurba joogta, waxaan la hadlayaa dulmidiid, waxaan la hadlayaa OLF, waxaan la hadlayaa groupka Cabdi Ilay, waxaan u hadlayaa dowladda federaalka Ethiopia, waxaan ka hadlayaa wax constitution ah, wax sharci ah oo meediyada ahayn ee siyaasad ah ee wax walba ku dhisan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة نصفي عنه فرق وحا كدعي بشي أفراد مقالة تشكشكا وان وذا أقنه سيدي وحيهين وان وذا أقنه وحان هراي وصوها لي إن إثيوبيا leadership كذا أي powerful تهي أي تهي دولة عدالة كسليسن ee tahay dowlad aan Oromiya, Amxaariya, Eritrea ahayn. maantu step baan ula socdaa amuraha waxa dhacay waan ii sheegay, waxaan nigu iri Cabdi Ilay ma joogayo, laakiin aasif waxaan ka xumahay runtii meediyada iyo siyaasadda ee maantu daarood leeyahay waxay noqotay wax soo jiraan ah oo technical ah oo professional ah ee wax walba ka hor imaan karo dadka isku diri karo. marka waxaan ku sheegayaa si fiican ii dhageysta. maalintii sabtiga dagaal baa dhacay, maalintii axadda waxaa soo degay Axmed Shide oo dowladda federaalka ka socdo, wafdi wato, attorney general kala socdo, xeer ilaaliye guud la socdo, madaxtooyaday ku dageen oo Cabdi Ilayna ku xiran yahay. xeerkii iyo constitutionkii la ilaalinayay la fiiriyey. isniintay shaqo bilaabanaysa. maantoo isniina Cabdi Ilay xeer ilaaliyaha u yeeray, waxaa la yidhi istiqaaro qadan waxaa ku qabanayo qaanuunka artikolka dastuurka u yaallo. haddii maamul goboleed state ay mashaakil iyo qalalaaso ka dhacaan, waxaa mas-uuliyadeeda qaadayo madaxweynaha stateka. marka iscasil, amni, dil, boob, hanti la boobay, bangiyadii la boobay, dad qaxay, siyaadadii lagu tuntay. Cabdi Ilay alternative ma qabin, walaa OLF lalama shirin, walaa Cabdi Ilay lalama shirin. waxaa yimid attorney generalkii, xeer ilaaliyaha guud ee xataa xukunka ka qaadi karo ra'iisul wasaaraha. ogaada dastuurka ku naqda. Cabdi Ilay waxaa laga saxiixay waraaq inuu iscasilay, xukunkii ka degay. xeer ilaaliyaha waraaq kaluu soo qaaday uu ku amrayo xisbiga talada haya iyo kabinetka Cabdi Ilay iyo golaha shacabka ayuu u qoray waraaq uu raaciyey tii Cabdi Ilay ay militariga qaadeen, loo geeyey golaha ismaamul goboleedka shacabkoodii oo guddoomiyihii hadlayey ee dadka kicinayey iyo raggii hadlayey ee magaalada booba dhahay. waraaqdii way u tagtay. Cabdi Ilay oo jeebbadeedsan, qofna arkin, waa la qaaday, Addis Ababa uu aaday. Axmed Shide iyo xeer ilaaliyaha wuxuu ku sugan yihiin jigjiga. waxaa diiday saa markay wax u dhaceen, daaroodku waa aqli badan yahay. xisbigii talada hadduu madaxweynaha iscasilo, xisbigii waa inuu guddoomiye magacaabaa. waxay israaciyeen afartii fadhisay shalay ee dagaalama dhahaysay, ee dad dila dhahaysay, ee magaalada xabad ku dhufta ciidamada dhahaysay, arooma ku sheega, oromo qaxisay, shacabkii Soomaalida boobtay, ayay fakereen inay dadku u aqli badan yihiin. ee golaha xisbigaa fariistay, baarlamaan eber ah oo golo shacab isku magacaabay oo moryaan ah oo ku hadlay in ninkii lahaa madaxweynahan laanahay
waana lagu soo duulay waana lagu qasbaday inuu haddana hadlo uu yidhaaho meedyada ka hadlo uu yidhaaho waxaanu ku dhawaaqnay guddoomiye ku-xigeen xisbiga waxaan ku dhawaaqnay madaxweyne ku-meel gaar sidii baarlamaanka loo fadhiisto sidii baarlamaanka loo soo ansixiyo oo loo soo celiyo marka waxa weeyaan waa beenta daarood ku shaqaysta ay ku soo jiidanayaan ay ku bajinayaan ay leeyihiin dowladda dhexaan gacanta ku heenna waxaa wax kama jiro bal ismaamul goboleedka baarlamaankii ma fadhiisan 30 ninaa fadhisay ee mooryaantii dadka kicise ah gaar ahaan jigjiga hadday ismagacaabi karto aaway golahii shacabka waxa weeyaan guddoomiye xisbigooday magacaabeen guddoomiyaha xisbiga iyo golaha shacabka istikaaradii cabdi ilay unbaa run ah iyo amarkii prosecutorka uu xukunka kaga wareejiyey golaha wasiirada meesha fadhiya mooryaanta iska hadlaysa facebooka ka hadlaysa sidii taabid xaafadihii isku soo yeertay muqdisho ismagacaabay marka waxaan leeyahay ha degdegina ninkani madaxweyne maaha ninkani waa dambiile waa wasiir maaliyeed waa wasiirka biyaha xoolo badan xaday cabdi ilay wax ma dhaamo inta meesha fadhiso dambiilayeel way ninkii hadlayey iyo inta meesha fadhiso weeyaan ragga maanta yiri magaalada hala boobo ciidamada dhagaxa lagu tuuro ciidamada hala eriyo weli dowladda Itoobiya ma hadlin idaacadda Itoobiya weli ma oran madaxweynaha la magacaabay ogaadeen baas magacaabay tuug baas magacaawtay luwa baas magacaaway maryam baas magacaaway dalka Soomaali galbeed maanta waxa haysto military caasimadda waxa haysto military dastuurkana waxa ku amray attorney general xeer ilaaliyaha guud ee abi xataa xukunka ka qaadi karo ayaa istikaaradda ka soo qoray cabdi ilay hadiis baa loo qaaday cabdi ilay maxaa loo hadalsiin waayey cabdi ilay muxuu dadka ula hadli waayey cabdi ilay jeebad baa lagu dhajiyey hadiis buu aaday ragga diri dhabe ku shiray way diideen ismagacaawda go'aanka xildhibaanada baarlamaanka Itoobiya bari ay fariisanayaan way diidayaan haddii 2 cisho 3 cisho joogo 40 cisho maahane 3 cisho ma joogayo waxa magaalada xukunka haysto ay dowladda u dhiibtay ee militariga iyo Axmed Shide iyo attorney generalka shirweynaha dhacayo dowladda Itoobiya ka soo hadlaysa Itoobiya waa dowladda federaalka shacabkan dhalinyarada ee hadlaya siyaasadda ka fariista yaa la hadlin caawa yaa la hadlin beri dambe ilaa aad idaacadda ka dhagaysataan oromo waddanka ma haysato waddanka waxaa haysto dowlad constitution lah Ethiopian Federal Government la dhahayo marka waxa weeyaan beenta daarood qarbay niga tuuraysaa maanta daarood uu tugtamaya OLF iyo midnimaan ka shaqeyno madaxweyne ku meel gaaraan magacawnay shir baan qabanaynaa shir baan isku yeeraynaa yaa loo tagin wax ay yihiin iyo waxay haystaan maaha waa tuug moryaan ah waa tuug isticmaalayso meedyada waa tuug wax ka jirin hadalkooda waxaa la yidhi nin daad qaaday xumbo cuskay rafay ilaa uu sakaraadka ka dhimanayo wax walba ha sheegaan marka waxaan leenahay dalka Itoobiya leh adinku Itoobiyaan baa tihiin gorgor ilaa mooyaale ilaa dirdhabe ilaa jigjiga arrimihii ugu muhiimsanaa waxa weeyaan madaxweyne maaha waxaa dhacday dowladdii Soomaaliyeed ee DDSI kabinetkeedii wuu dhacay hadduu madaxweyne iscasilay nin madaxweyne magacaabi karo male baarlamaan fadhiisan karo male dowlad ma jirto yaan taladana laga xumeen haska hadlina haska caytamina berri inaan ka soo hadlaan doonay waxaan arkay ciyaal yaryar oo iska hadlay oo oromo af lagaadeynay oo dhahay oromo nin kale u dhiibta oo dhahay kanay u dhiibta waxaan nii sheegayaa daaroodku meedyadoodu ha dhegaysanina beelow falalow ha dhegaysanina waxaad dhegaysatiin ra-iisul wasaaraha oo ogolaaday oo hadlay ama ra-iisul wasaaraha oo yidhaahay baarlamaankaa fadhiisto ama golaha shacabka ee federaalka oo yidhaahay shir ha la qabto ama heshiisiin la suubiyo ama waxaa la suubiyo war ninkii shalay ka hadlayay qolkii ee lahaa madaxweynaha qotiga ah ee dhahay madaxweynihii meeluu jiro ma ogin waana la qabsaday
دتوق بأنا خمسطي أبا كوي كلا داي دجالن كوي كلا داي وحدلا كوي كلا داي دتك بابا كوي كلا داي ملترجع ملح كتوجرينا كوي كلا داي أوروبان كتوجرينا أخلي هالاستعماله تيبي يلا متاي رجع إمين كمباها حمر وحانو نيري مركو دارات كيري حبة السكتو ما مركو دارات كيري حبة كينتو رير وخوي أنا وحانو قلت جوابني هدانو رير وخوي نهاي ومقدشة شوقني وحانا نيري حبة السكتاتين فرطان كفيخني حبة السكتاتين فرطان كفيخني مركا ما انتو وحان ليهاي قولها شعب صدق قفوضي فريستي وقادين إيوه تلسك فرعون عبدي إلي وحان ورنينا عبدي إلي محكمة بالو تحابيي هذين كان محكمة سكتاتين محكمة سكتاتين هذينكو كريمينال باتين هذينكو محكمة سكتاتين هذينكو مدحوينة سوما مقعابي كرتين هذينكو متهين DDSI هذينكو متهين صومالي قلبات هذينكو حاتين لوا وحاتين مريان أوي الوادي أوي مدحوينها استخارة قدمي إلا ساعد عن تلفزيون وصفر يسوي ورعاوي عدي لي ودي ويوات تنازلي عدي لي وانين حرن شرعي قابتي التوني جنرالك أيا استخارك قدمي جابت كل جي لما عسكري راعيي أديس لقي ميلو كسوغيا لما هو دبلوما أركيو وذا هذا الدولة دي توبيا كماله ننكر هاديس مقعابي يخلوي كان هاد لي وحي ربان سيأي كسو قلان سيأي قطو بنيستان إنay shir fariisan karaan inay wanaag ka taliyeen wanaag kama talin haddii looma haysto xasuuqii loogo iyo dadkii ay dileen iyo dhibaatadii ka dhacday iyo baanankii la boobay waxaa loo haystaa kuwa maanta gacan taagayo ayaa ka dhawaajiyey maalintii ugu soo horreeyey dowladda ka soo horjeestay dowladda federaalka xukunkooda jibiyey ee yidhi magaalada hala boobo ee yidhi hala dagaalamo ee la yidhi askarta qori ha loo qaato hala toogto ee la yidhi dhagax ha la qaato taa weeyaan marka dhinamada isaaqa hadlayo waxaad tiraahdeen idaacadda Itoobiya sugeena kuwaana madaxnooma aho kuwaani waa kuwii dadka qaxiyay war kuwaani haddaad oroma tiraadid xataa raggii hadlay maalintii afarta ahayd ee saddex kun oo oromo qaxiyay ee maalkii Soomaaliyeed Soomaalida galbeed ee caasimadda boobay ee bangiyada boobay ee hadda ismagacaabayo dee waxnima yeeli karaan عبدي لي حكم بالجيي سيدي هرجيس اللوجا سوقحي اللو يري حبة كانتو أيان ما أنتو حنكون جوابي يا رير حمر كي رير وقوي مقدشة شوقي وحن رير حبة السكتو قولها شعبك كابريتك عبدي لي وحاتين حكم سوين وحاتين حكم سوين وحاتين جيل سوين نجد عيالك كحرة بربار تصفي عني مغلا شير قرية التوني الجنرالي أياك قري استخارة عزلات ما نعدي إليه ما تنازلين ولينا ما تنازلين وانا أقنع شال بالله درو حساب باوطا ديس بالله خاض قف يجيجيكو كواركي مالي لواو جوغا قف البهد لاي صور لغا مسو قادين تليفون يرحطا لكو مسو هادلين عبدي لي وانين حيران مركا waxaan nii sheegayaa oo aan ku celcelinayaa nimankani waxaa loo keenay istikaaradii Cabdi Ilay waa run waxaana la yiri xukunkii xisbigan hayay waa laga xayuubiyay maadaama madaxweynaha iscasilay xaq bay u leeyihiin xisbigooda ay fariisteen waxay yiraahdeen anaga maxaa talanoo ah daaradku waa aqli badan yahay waxay yiraahdeen kii Oromo hadal hadane intii afartii joogtay waxay yiraahdeen gudoomiye xisbiyan ku dhawaaqnay barkii xisbiga wuu jiraa gudoomiye xisbiyan ku dhawaaqnay madaxweyne ku beelgaar ku dhawaaqnay si shirarka iyo wax walba loo soo hagajiyo ilaa 40 bari oo annagana lagu diro dowladda federaalka loo bedelo Oromo waxay leeshiisay Cabdi Ilay waxa loo keenay wasiir maaliye xisaaba ku socoto luwa police xisaaba ku socoto kabineedyada xisaaba ku socdo kan madaxweynaha sheeganay wasaaradda biyaha xisaaba ku socoto marka waxa weeye degdegina waxa tihiin dad aqli yar qaqan dhageesta ninkii ugu horeeyay dhahay waay 3 bil Cabdi Ilay waa la xiraya Cabdi Ilay waa la xiraya waa la caay sakraan wax walba tiri maanta waa haysiin in la xiray haddii la xiraan wax nii sheegeen wali hadal sii wadin xukunka waa laga qaaday wuu xiran yahay war muwaalataada madaxweyne istiqaar qadimay telefishinka soo istaagay wuxuu leeyahay aniga istiqaar qadimay ma dhicin meedii yar la soo galo
sawir cabdiile la soo geliyey madaxweyne cusubaa la magacaabay la dhaho kanaa la magacaabay la dhaho that is indigen baa tihin waxaa tihin xoolo dad jiraba maa tihin inaa intaa ka weyntihin oo ka aqli badan tihin amood magaalada waxaa ku sugan maskaxdii soomaaliyeed bacd al cabdilmajiid axmed shidaa ku sugan weli press conference ma bixin weli ma hadlin asaa loo soo diray taliyaha ciidamada dhanaa ku sugan aad tireen waa oromo press ma bixin hadal ma sheegin dee ha degdegina meesha waa dowlad hasta la victoria sempre kaqaayash mac salaama